7 wadan oo aan Schengen ahayn waxaad ku booqan kartaa fiisaha Schengen. Qof kasta oo socdaal ah ayaa ku riyoonaya inuu helo fiisaha Schengen. Kuwa aan garanayn, fiisaha Schengen waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dukumentiyada safarka ee ugu awoodda badan ee gelitaanka waddamada Yurub. Dalku-galkan, dadku waxay sahmin karaan 27 waddan oo ku yaal gobolka Schengen ee Yurub. Si kastaba ha ahaatee, dad badan maaha inay ogaadaan xaqiiqda ah inay sidoo kale albaabada u furto dhowr waddan oo aan Schengen ahayn. Si sax ah ayaad u akhriday. Markaad haysato fiisaha Schengen, waxaad sahmin kartaa 30 waddan oo aan Schengen ahayn. Dukumentigu wuxuu u oggolaanayaa inay soo galaan dadka safarka ah ee dalal kale oo badan inta badan iyada oo aan loo baahnayn fiisaha dheeraadka ah. Qoraalkan, eeg 8 waddan oo aan Schengen ahayn oo aad ku booqan karto fiisaha Schengen. Georgia waa waddan gaar ah oo ka gudba qaaradaha ku yaala iskaysyada Yurub iyo Aasiya. Waxay u oggolaanaysaa haystaha fiisaha Schengen ee gelitaanka badan oo ansax ah inuu joogo ilaa 9 maalmood muddo 8 maalmood ah kasta. Iyada oo caasimadeeda Tbilisi, buuraha Caucasus, iyo dhaqanka khamriga qadiimiga ah, Georgia waxay bixisaa isku darka saamaynta Yurub iyo Aasiya. Macluumaadka fiisaha, dadka safarka ah ee haysta fiisaha Schengen oo sax ah waxay ku geli karaan Georgia fiiso bilaash ah ilaa 9 maalmood gudahood 8 maalmood gudahood. Serbiya waxay u oggolaataa booqdayaasha leh fiisaha Schengen oo sax ah inay galaan ilaa 9 maalmood gudahooda 8 maalmood. Iyadoo aan xubin ka ahayn EU ama Schengen, Serbiya waxay soo dhaweynaysaa dadka haysta fiisaha Schengen. Nolosha magaalada ee firfircoon ee Belgrade iyo kiniisadaha taariikhiga ah ee baadiyaha ayaa ah soo jiidasho caan ah. Macluumaadka fiisaha, dadku waxay booqan karaan Serbiya bilaa fiiso ilaa 9 maalmood gudahooda 8 maalmood gudahood, haddii ay haystaan fiisaha Schengen oo sax ah. Waqooyiga Macedonia waxay u oggolaataa gelitaanka ilaa 5 maalmood dadka haysta fiisaha Schengen oo sax ah oo badan. Dalkan dhaqan ahaan qani ku ah waxaa ka buuxa burbur qadiimi ah, dhismo Cismaaniyiin ah, iyo muuqaalo dabiici ah oo qurux badan sida harada Ohrid oo iyaduna ah goobta dhaxalka adduunka ee UNESCO. Macluumaad fiisaha, dadka safarka ah waxay ku geli karaan Waqooyiga Macedonia fiiso bilaash ah ilaa 5 maalmood, waase haddii wadarta joogitaankooda Schengen ay ku haraan 9 maalmood gudahooda 8 maalmood kasta. Fiisahooda Schengenna uu shaqaynayo ugu yaraan 5 maalmood wixii ka dambeeya joogitaankooda Waqooyiga Macedonia. Montenegro waxay ku saabsan tahay xeebteeda quruxda badan ee Adriatic iyo dhul buuraley ah. Wadanku wuxuu u oggol yahay gelitaanka ilaa 3 maalmood kuwa haysta fiisaha Schengen sax ah, nooca amad gelitaan badan. Markaad joogto Montenegro, ha ka maqnaan sahaminta beerta qaranka ee Durmitor. Macluumaadka fiisaha, dadka safarka ah ee haysta fiisaha Schengenka ee gelitaanka badan ee saxda ah waxay geli karaan Montenegro ilaa 3 maalmood, ama ilaa fiisuhu ka dhacayo haddii sharcigiisu ka yar yahay 3 maalmood. Bosnia iyo Herzegovina waxay u oggolaataa booqdayaasha haysta fiisaha Schengen sax ah, nooca ah, gelitaan badan, inay dalka sahamiyaan ilaa 5 maalmood gudahooda 8 maalmood. Tani waxay fududaynaysaa inaad booqato Sarajevo, Mostar, iyo quruxda dabiiciga ah ee beerta qaranka Una. Macluumaadka fiisaha, kuwa haysta fiisaha Schengenka ee gelitaanka badan waxay ku geli karaan Bosnia iyo Herzegovina fiiso la'aan ilaa 3 maalmood booqasho kasta, gudahooda 9 maalmood oo xadidan muddo 8 maalmood ah. Albania waa mid ka mid ah dalalka ugu quruxda badan adduunka ee sugaya in la ogaado. Dadka socotada ah ee haysta fiisaha Schengen waxay sahamin karaan dhagaxan Balkanska ah iyaga oo aan haysan fiisaha Albanian gaar ah. Kuwa booqanaya Giriga ama Montenegro waxay sahamin karaan doorashadan. Laga soo bilaabo magaalada taariikhiga ah ee Berat ilaa Riviera Albanian ee quruxda badan, waddanku wuxuu bixiyaa khibrad dhaqameed iyo dabiici ah oo qani ah. Macluumaadka fiisa, dadka safarka ah ee haysta fiisaha Schengen oo sax ah, oo la isticmaalay ugu yaraan hal mar waxay ku geli karaan fiisaha Albania lacag la'aan ilaa 9 maalmood gudahooda 8 maalmood. Haddii aad jeceshahay warbixinta noocan ah, fadlan guji badhanka subscribe si aad u hesho warbixin badan. Waad ku mahadsan tahay dhegaysiga. Ha iloobin inaad nagu soo biirto nabadgelyo.